السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمالي محمد ملك هستيد الدمك كجوكتا وروى أحد يعني قرح بسوتشي دوا مالين فصحى مركا waxaan go'aansaday muuqaal in la soo geliyo waa qasab baan taas maanta bari iyo been marna ma talidi maalin walba san u lahaa sanad malaa ku dhawaad sanad imika ismanaan arag san u lahaa muuqaal baan soo gelinaya ilaa hadda maan soo gelin laakiin maanta waa qorrax baan soo jeedaa alxamdulillah rabbil caalamiin wad halka joogta qorraxdii marka waxaan dileeyahay maanta ku soo dhaw muuqaalkeenan maanta waxaan kaga hadli doonaa dhowr waxyaabood oo aad jeclaan lahayd inaad ku ogaato intaanad iman dalalkan Yurub ku soo dhaw marka muuqaalkeena waxaan dileeyahay marka mid arkay maanta farxadda ka muuqata farxadda kamarada xitaa laftigeedan u xiisay ku soo dhaw muuqaalkeena maanta waxa inaan inta rooga si dheerayn ku soo dhawow fadlan like ta subscribe ta share ta wax kasta oo ka mudan yahayba fadlan muuqaalkaas ha ka hilmaamin baan dileeyahay ku soo dhawow muuqaalkeena maanta waxay isu keen dambeysay waqti dheer ku soo dhawaada muuqaalkeenan maanta inta aan sii dheeraynayn inta rogeena yar baan ku socdaa maanta sababtoo ah in dhaweyd malaamka ku dhawaad man sports man dhawana ma macayaan sababtoo ah dhaawacayga soo gaadhay adinkaygan marka aynu gal horta garoonka kadib maanta cadceed baa noo joogtay alxamdulillah waa ahad yani waa waxay dhahaan maalintii nasiinada laakiin aniga maalintii nasiinada ma aha oo imku mala 3 week school maanaan lahayn marka waxaad leeyahay soo dhawow muuqaalkeenan haddii ku cajibiyo fadlan like ta subscribe ta share ta iyo wax kasta uu ka mudan yahay fadlan si ku soo dhawow marka muuqaalkeenan oo faahfaahsan qofku markuu sida u yimaado dalkan waxaad ka bilaabaysaa noloshaadii oo dhan horta waxay ka bilaabanaysaa zero ما تقان zero وإيفر وحبا ما تقبل عليه وحب مسيدتي يعني هدي هذا هيد قف جامعة كسب بحوي zero قف هدي هذا هيد قف كسب بحي سكول بحوي يعني zero يعني أنا حنقال لي دل كنا نشوف يوروب طبعا كهال اللي كريم معي ودل كنا نشوفن أيام بنقال اللي كرا سبته دل كنا نشوفن بنقاه يستوي فكرة وأن تصالحش عن يشي جدا كجرنا يعني ودل كنا يوروب طبعا وحبا كم ورها يعني دي كم ورها يو كم هال اللي كرا مركا يعني واحد كستو أد بلوده واحد كبل عبيسة zero بad ka bilaabay sababtoo ah waxa tahay qof dalka ku cusub marka waxa looga baahan yahay af baa looga baahan yahay af aan Ingiriisi ahayn waxaan ogaaday markii aan wadankan yimina horta afka Ingiriisiga uu yahay waa af international language waa sax laakiin mararka qaar ayaa waxay dalalka qaar waxay ka tahay waxaan aad iyo aad loo cisiin ka soo qaad waxa tahay qof af Ingiriisi yaqaan dalkan kula joogo afkeenad xoog u baratay laga yaab afkiisa inaad Ingiriisiga ku caawinayso xoog u baratay ma sheegin laakiin inay ku anfacdo aad meel sare ka gaadho ma filayo inaad adigoo ka soo bilaabay zero sababtoo ah wax kasta waxaad ka bilaabaysaa zero marka ugu horeysa waxaan diiri zero wada wax walba ka soo bilaabaysaa qodobkeena labaad ayaa waxa uu yahay qofku markuu sida u yimaado dalkan inta badan dadkeena wadagtoon waxay ku yimaadaan sifadan tahriibka ama qotoqotada wada garanaysaan inta diyaaradda ku timaado waa in yar waa boqolkiiba waxa oran karaa 0.1 baan oran karaa marka dadkeenu hadii sida u badan yihiin qofkii waxa laga rabaa in uu sharci wax la yiraahdo hadaba uu arrinkiisa galo oo joogitaanka meesha wuxuu ku joogi lahaa waraaqii ku joogi lahaa waa sida u yimaado waraaqahaas ayuu gudagelaya soo helitaankiisa oo helo waraaqahaas ama sharcigaas waxa loo yaqaan wuxuu ku jira waddankan aan joogo wadamada ugu adag ee bixiya sharciyada Yurub ama wadamada dadka siiya ayuu ugu jira in waxaan garanayaa dad iyo badan oo qaar ay joogan 6 sano 7 sano way jiraan dad badan oo sharciga markiiba la siiyay adiga calafkaaga qadarka rabbi uu ku qoray marka waxa jira dad iyo badan oo 10 sano jooga oo la hadda sharci ahay laakiin way shaqaystaan way nool yihiin laakiin arrinta sharci haysashadu waxay ka mid tahay qofka nabdigiisa oo degan ay ka mid tahay marka dhibaatadaas oo qofkii markuu sida u yimaado waxa ka hor imanaysa sharci la'aanta qof marka inta badan inaad aragteen mooyaan dalkan Jarmalkan jooga inta badan waxaan maqashan Soomaali laga yaabay mid la carartay ama qof dhibaataysay ama inta badan qof dadka Jarmalka jooga way ka warhayaan Soomaalida dhalinyarada waliba dhibaatada laga soo sheego dheeli ama maalin walba laga soo sheego marka waxa ka mid ah dhibaatooyinkaas wadankan oo ah mid aad sharcigiisu uu adag yahay kadibna qofkii dhalinyar taha markuu noloshiisa saandiisa sheegay zero laga soo bilaabo hadana aanu sharci haysan qasab marka waxaynan maqli jireen oo dalkeena depression in stress kale maqashaan ma taqaana meeshana loogu yimaado halkan dadku qaariib maleynayna jannada halkan loogu yimaado waliga ilaahay maan maqal dalkii qof
stress depression iyo waxa nolosha ka maqal ma jiraan bas odhanaysaa marka sabab dhibaatadaas waa dhibaato ka hor imanaysa qofkii markuu qofkii dhalinyarada ah markuu sida u soo galo wadankan marka sharciga aad iyo aad u adag ayaa kaaga hor imanaysa dalkan aan joogay Jarmalka taasina waa qodob labaad oo qofkii u horseedi karta noloshiisa nafsi ahaantiisa marka waa dhibaato taasina taas waa qodobkeena labaad yimaadaan qodobkeena saddexaad ayayna soo gaarnay dhibaatooyinkaas waxa ka mid ah ama dhibaatooyinka haysta dadkaas waxa ka mid ah markay sida u yimaadaan qofkii oo luqad yar hadii uu in yar barto uu luqadii in yar barto qofkaasi waxa uu gudagalayaa si uu u raadin lahaa shaqadii buu helay shaqada inta badan dadka dalkeena waxa uu yaqaanaa oo dadka inta meesha waxa looga yaqaanaa xamaal yaani shaqo aynu soo koobnaa xamaal iyo waxaan iska deyn taas waa arrin kale iyo mowduuc kale iyo maalin kale iyo muuqaal kale kaga hadli doona xamaalka loo yaqaan shaqadii qofkii shaqadii buu galay shaqadii yaani waxa u soo dhacday 2,000 oo euro inaga 2,000 oo euro lacag badan ha dalkeena marka loo barbar dhigo waa 2,000 $2,700 ma waa lacag badan maqlaysa laakiin hadaba dhibaatada mushaharka ka qofka ku hoosheerta dawaan kaaga sheekayo qofkii waxa uu markiiba galay horta guri buu kareysanaya guri lacagtiisa baa laga rabaa leerkiisa baa laga rabaa waxa laga rabaa internet ku bixinayo waxa laga rabaa hadii noloshiisa kala laga rabaa waxa laga rabaa oo kale qofkii in uu biil diro dadkeen inta badan waad garanaysaa oo dadka qurba joogta dad yaani biil bad loo diraa dadkii qolqal joogta ama joogay dalkeena joogay intaas oo dhan marka la isu keeno hadii loo barbar dhigo mushaharka qofkaasi qaadanayay ma yahay mid yaani hanti amaba hodan ka dhigi kara ma ahan oran kara way dadkan meeshan ku nool aniga garanaya 2,000 iyo something guriga qolka qura ee digantay ee dhowrka mitira ayaa waxa laga kareenaya meeshan 500 400 oo euro laga kareenaya qofka wax doonaya wuxuu cunuu raba marka bilaa calaykum bal ila qiyaas bal marka waxa soo dhan soo dirisid ee aan ku soo tiriyay marka bal barbar dhigtay 2,000 aad qaadatay ma u qalantaa noqonaysa yaani 2,000 ma noqonaysa wax weyn ma noqonaysa marka taasina waa dhibaatooyinka meeshan yaala ama qurbaha yaala ay kamid haddana waxaan soo gaarnay qodobkeena afraad baan soo gaarnay qodobkeena afraad dhibaatooyinka dadka ka hor imaada markay qurbaha soo galaan waxa kamid ah waxa la yiraahdo isdhexgalka bulsho kama jiro meeshan aan ku noolahay dalka Jarmalka amaba tan ma odhan kartaan qurbaha oo dhan waxaan filayaa inay tahay dal inta badan Yurub ayaa ka walaalaa dhaqankaas way Mareykanka ka duway wadad isdhexgal bulsho badan ay ka jirto laakiin meeshan aan joogo dalkan aan joogo nolosha isdhexgalka bulsho waa mid way dhimatay nolosha isdhexgal bulsho ma jirto yaani waa shaqadaada hadaa iskuulkaaga gurigaaga shaqadaada iskuulkaaga saaxiibtinimo iyo dad la ciyaar iyo يعني waxaas ma mid meeshan ka shaqeynaysa yani waa dad wada xidhan waxa la yaabay mataqaana waxaan la yaabay mataqaana dadka markaan dalkan sida u yimaado waxaan arkay inta badan winterka maqashan may barfiyo iyo waxba ka daa meeshan marka dhulka oo dhan waa dark yani waa madow iyo graw iyo marka dadka dhibaatada dhacda waxay tahay dadka inta badan waa dad wada caaraysan sababtoo ah cad wax ka qayb qaadatay jawiga ama farxadda iyo nolosha qofka iyo noolaanshiyaha qofka wada oran karta marka meeshan amro xaasil wax la yiraahdo nolosha isdhexgalka bulsho wax la yiraahdo waxaasi kama jiraan waa yaani waa nafsidaas marka qofka dhalinyarta ama inta badan meeshan imaada waxay ku keentaa yaani waxay ku keentay اكتئاب depression qurun iyo qashaabir adoo xanuuno aynan maqal ay qofka ku keentaa isdhexgal bulsho la'aantaasi marka taasina waa dhibaato ka hor iman karta qofkii dhalinyarta ama qofkii dhalinyarta ma oran karo qofkii markuu sida u yimaado dalalka qurbaha markuu sida u yimaado waa dhibaato ka hor imanaysa marka taana waxaan ku leeyahay isdhexgalka bulsho waa mid dhintay weey
waxaan ku leeyahay haddii ay u qalanto imaanshiyaha Yurub oo aad ku imanayso sifa sharci leh fadlan kaale aniga kule horumar waad ka gaadhaysaa laakiin fadlan haddii aad tahriib iyo qoto iyo lacagta faraha badnayd ee kugu baxaysay aad ku imaanayso Yurub waxaan ku leeyahay fadlan uma qalantaan ku leeyahay fadlan joog wadankaaga oo imaanso marka yani lacagta inta badan ee aad ku bixinayso wadada jidka ku soo bixinayso haddii aad ganacsi wax walba ku samaysan lahayd waxay naftaada horumar badan bad gaarsiin kartaa adigoo intan imanba marka waxaan ku leeyahay fadlan ka fakar intaanad iman wadamadan Yurub intaanad u soo gelin safarka inta leeg ee dhibaatada leh ee halista leh intaanad u soo gelin fadlan waxaan ku leeyahay boqol jeer marar badan dadka la tashi oo ka fakar oo maankaaga la kaashan ku leeyahay laakiin haddii aad fashan cid ku imanayso oo aanad ku imanayn halkii wadadii dheer lacagta faraha badnayd ee dhibaatada badnayd kaale insha Allah taala waxaan ku rajaynayaa mid aad ka gaari karto horumar inuu ku noqdo marka waxaan ku leeyahay waxa la gaaray muuqaalkeena gabadhiisa fadlan haddii uu muuqaalkan ku cajabiyay subscribe ta like ta share ta iyo wax kasta oo kaaga baahan yahay fadlan ha ka hilmaamin waxaan idin leeyahay inta ku kulmi doono muuqaalkan iyo muuqaalo badan oo xiga horta waxaan rajaynayaa maanta in muuqaalkan soo geliyo insha Allah taala di kan qowiyay bari la saad ma insha Allah waa soo geliyo insha Allah taala waan ku rajo qaba marka inta ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan ugu dhaafayaa sidaas iyo nabadiino